waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Mise Biixi Cabdi wasiirka caafimaadka iyo marti sharafta kale ee halkan isugu timi waxaan doonayaa inaan in yar idinka sheego ururkan halkan magaciisu ku qoran yahay oo la yiraahdo Somaliland American Health Association waxa horto isu kaaya keenay oo oran karaa way aanu ka abuuranayba dhibaatadan caalamka ku habsatay ee COVID-19 markii aanu isu nimi ayaanu isneeray markaa si wada joogteeno community-gi bahda caafimaadka ee Mareykanka iyo North America intii iskaadhaysay ka guurtaan jahliyadii ama community-gi oo u guurtaan professional organization si aanu dhulkaanu joognana wax ula qaybsano hadaanu sharcigooda urur ahaan leenahay halkaanu ka nimina wax ugu tari karno waxaan markaas waxa iyadana aanu isku daynay inaanu ka shaqeyno sidii aanu la xiriiri lahayn wadankeena dadka bahda caafimaadka ee ka shaqeeyo aanu midaba wadnay waxaan markaa isla eegnay kaalinta aanu ka gali karno koruqaadka tayada caafimaadka ee dalkeena annagoo ka faa'iideysanayna xogogaalnimadaan u nahay wadankii oo waa joognaayo waa ka midnahay ehelkaygii baa joogo annagii baa joognaa iyo fursadaha aanu isdhiray way ka jiraan dhulka aanu joogno ayaanu isdhiray wixii labada isqaban kara isqabatiya marka meel wanaagsan oo laga bilaabi karo tayo kordhinta waxay nala noqotay waxbarashada aasaasiga ah ee marka dhakhtarnimada medical schoolada lagu jiro iyo joogtaynta ama kobcinta dadkan imika shaqeynaya ee dhakhtarada ah iyagana inaanu siino xusuusino in ay muhiim tahay in lala socdo marba wixii isbedelaya taasi markaa waxay nagelisay aanu raadinay cusbitaallo waaweyn iyo cimaarado dhaadheer oo cusbitaallo ma dhisi karno waxaanu laakiin isdhimalaha dadka idinkoo kala ah ee wadankii jooga ee aan helin nasiibkana u hesheen dhul ay inaga dhaqaalo badan oo waxaan yaalaan inaanu la qaybsano wixii aanu la qaybsan karinay marka waxaanu keenay program wax laga barto oo up to date la yiraahdo oo ku siinaya qofka isticmaalaya marjac ama source of truth waxa la oran karo af Ingiriisiga marjac cilmiga caafimaadka ee caalamka ugu casrisan waqtiga uu qofkaasi isticmaalayo maxaa yeelay up to date kan dhakhaatiir iyo xeeldheeraal caafimaad oo lagu tirinayo inay yihiin kuwa waqtiga ugu aqoon badan caalamka oo dhan ayaa ka shaqeeya oo update gareeya maalin walba waxa ka shaqeeya ilaa in ka badan 7,000 oo dhakhtar ama xeeldheer caafimaad ayaa ka shaqeeya oo aan u soo shaqo tagay aroortii oo 25 takhasus oo kala duwan ayay markaa ka shaqeeyaan oo ay marba wixii ku soo kordhana ku kordhiyaan wixii markaa laga tagayay aan la isiraahdo looma baahnana ay ka saaraan marka imika tusaale ahaan oo kale waxay eegaan dadka isticmaalo kale waa la socdaa maalin walba 1 milyan 1.6 milyan goor ayuu dhakhtar ama arday caafimaad eega oo uu ka raadsadaa macluumaad caafimaad maalintiiba 1.6 milyan waxa iyagana muddadii ay jirtay programkan aanu keenay 300,000 oo kun oo go'aan caafimaad ayaa maalin walba lagu qaataa marka la isku daro dadka isticmaalaya marka dhakhtarkaas isticmaalaya wuxuu isticmaali karaa isagoo xataa aan haysan internet oo waxa weeyaan maadaama oo casrigan imika jira buugaagtii aad looga guurayo oo digital ay u badanayso waxbarashadii wuxuu qofka fursad u siinayaa hadduu computer haysto internet ku jiro ama telefoonadan internetka laga isticmaali karo wuu isticmaalayaa isagoo bukaankii dul taagan ama jooga gurigiisii waxa kaloo isticmaali karaa dadka aan jaaniska u helin inay magaalooyinka waaweyn ka shaqeeyaan ee meelaha peripheryga meelaha fogfog ka shaqeynaya uma baahna internet waxay ku shuban karaan macluumaadka ay doonayaan telefoonkooda halkaasay ku isticmaalayaan marka waxaan u gaarayaa goob kasta iyo goor kasta oo qofkaasi u baahdo
waxay taasi iyaduna suuro gelinaysaa in cusbitaaladeenna oo imika u badan meelo dadka lagu daweeyo ay ku dhowaadaan ama noqdaanba meelaha kale qaar nagamadii ka shaqeeyaan oo ah meel wax laga barto marka xaruntii caafimaadka ayaa waxay noqonaysaa xarun waxbarasho oo ay dadkii ka bartaan wax waana goolka aanu isleenahay haddaa wadi kartaan wada oo isku day cusbitaalladu inay noqdaan meel loo yimaado in wax laga kororsadana waxaanu markaa insha allah halkaa aanu ka rajaynaynaa dhakhaatiirta waxaanu ku kalsoonahay dhakhaatiirta isticmaali doonta inay iyaguna ka faa'iidaystaan dadkana uga faa'iideeyaan goolka ugu dambeeya qofka ugu dambeeye ka faa'iidaysanaya waa qofkan xanuunsanaya ee uu keerkii caafimaad gaadhayo waxaan ku soo ururinayaa inaynu maadaama oo ay jirto waxbarasho ama aqoon kororsi la heli karo inaynu markaa ka yara gudubno in qof hal xanuun qaba ay siyaabo kala duwan loo daweeyo oo dadkii ay yeeshaan meel marjacahoo ay wax isku dhow oo laga yaaba dadku way kala duwan yihiin oo melihi dadku isku si loo wada daweeyo laakiin wax isku dhow oo marjac ay yeeshaan oo ay rifargareeyaan baa aanu meeshii keennay inta insha allah ayaan ku soo gabagabaynayaa